welcome to Gobchok TV. mudane Boris Johnson kusoo dhawaad Gobchok TV. Su'aasha ugu horeysa ku weydiinayna waxay tahay maanta madaxweynaha Soomaaliya aad kulan la yeelatay maxaad ka wada hadasheen qodobadii ugu waaweynaa aad ka doodeen maxay ahaayeen? Well, I had a very good meeting with President Farmaajo. kulan aad u wacan ayaa la yeeshay madaxweyne Farmaajo. waxaan ka wada doodnay xiriirka ka dhaxeeya Britain iyo Soomaaliya oo ah mid soo jireen ah. waxaan Soomaaliya u taageeraynaa sidii wadanka uu cagihiisa dib ugu istaagi lahaa, taasi oo aan si wada jir ah uga shaqeynayno xilli ay jiraan caqabado dhanka ammaanka ah. waxaan ka shaqeynaynaa sidii federaalka uga shaqeyn lahaayeen iyo dhammaan beesha caalamka sidii ay si wada jir ah ugu taageeri lahaayeen, sidii ay wax uga qaban lahaayeen musuqmaasuqa, ugana shaqeyn lahaayeen dowlad wanaagga iyo la dagaalanka al-shabaab. dhammaan arrimahaasi aan soo sheegnay waa mid wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya sida la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha. This time is crucial time for Somalia. There is the notice. waxaad Soomaaliya booqanaysaa mudane wasiir xilli xasaasi ah oo dalku ay ka jiraan abaaro badan kuwaas oo dad badan ay u geeriyoodeen. haddaba Britain maxay ka qabanaysaa abaaraha iminka dalka ka jira? The roots now in Somalia. Well, I'm very proud because the United Kingdom, Britain, has just given 110 million pounds, and that money. waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan ku faanayaa in dalkayga Britain uu Soomaaliya ugu tabarucay lacag dhan 110 milyan oo pound, taasi oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka taagan. waxaana lagu iibiyey qoraantiiba cunno iyo agab caafimaad oo aan ku dheedo halkan u joogo in aan indhahayga ku arko. sidaas daraaddeed hore ayaanba u bilownay hawshan. waxaan rabnaa in wadamada kale ee iminka ku soo biiraan. waxaan dareemayaa in xilligan uu ka wacan yahay abaartii 2011 maxaa yeelay xilligan jawaabta laga bixiyay abaarta Soomaaliya waxa ay ka weyn tahay tii hore, waana ay ka degdeg badan tahay gargaarka. marka rajadeennu waxa ay wanaagsan tahay inkastoo xaaladdu ay khatar tahay oo aan arkayno dad badan oo nafaqo daro la ildaran, xaaladuna ay aad u adag tahay. waxaan rabnaa inaan aragno wadamo kale oo arrinkan nagula soo biira. And we want to see other countries commit. In terms of UK-Somali relations and long-standing. marka laga soo tago kulankii maanta aad la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, haddana dowladda cusub ee la doortay isaga ayaa madax ka ah, waxaana loo doortay si dimuqraadiyad ku jirto. sidee rabtaan inaad ula shaqeysaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daatiin dowladda Britain? Well, we have a very good relationship. hagaag xiriir wanaagsan ayaan leenahay. waxaan yeelanay kulan aad u wacan. waan soo wacay markii la doortay anigu oo u hambaliyeeyay. waxa uu imaanayaa London shirka ka dhacaya ee Soomaaliya xaaladeeda looga hadlayo May 11. waana ka hadli doonaa dhibaatooyinka Soomaaliya. waxaan sidoo kale ka hadli doonaa fursadaha jira. ha iloobin UK aad ay ugu faanaysaa in ay la joogaan Soomaali fara badan. waa tiro badan oo aan u maleynayno inay yihiin 300 oo kun. waxaan aad u xasuustaa Mo Farah maxaa yeelay waxaan ahaa duqii London. waa nin orod badan oo ah ninka ugu horeeya ee orodada. waana isku fiicannahay oo waxaan wada hadalnay ciyaarihii Olombikada markii aan ahaa duqii London. We talked a lot during the Olympics when I was the mayor of London. Britain donated funded Somalia. lacagta aad Soomaaliya ugu tabarucdeen oo ah lacag ka badan 100 milyan oo pound, haddaba sidee ugu kontroleysaan oo aad ula soconaysaan in lacagtaas ay ku baxday meel sax ah? Well, we're doing it. I believe. waxaan aaminsanahay 110 milyan ee pound in ay qayb ahaan aadi doonaan hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay. waxaan ku dheedo arkayaa sidii loo qaybinayo mucaawinada aan bixinayno. waxaan dareemsanahay in dadkii loogu talagalay ay lacagtan aadi doonto. dhibka jira ayaa ah goobaha ugu daran ay abaartu saameysay. al-shabaab ayaa inta badan jooga. waana adag tahay in meelahaasi wax la gaarsiiyo, balse shaqaalaha gargaarka shaqo fiican ayay sameynayaan. But they're making a very good job. There is a British tourism in Somalia now. ciidamo Britain ah ayaa dalka Soomaaliya jooga kuwaas oo caawinaya dowladda Soomaaliya. haddaba ciidamadaas iminka maxay qabtaan? Well, I think that what our troops are doing to help the Somali army to help. ciidamadeenu waxay halkan u joogaan inay caawiyaan ciidamada Soomaalida oo ay tababaraan. sidoo kale waxay caawinayaan kuwa AMISOM oo ah
mid aad muhiim u ah arrimaha ammaankuna waa number 1 dalku hadduu helo ammaan dadku waxa ay ku dhiiranayaan in ay maalgashi samaystaan ganacsiga ayaa shaqaynaya dadkuna waxay helayaan kalsooni waxay iska celinayaan argagixisada waxa ay dib u bilaabayaan ganacsigooda waana waxa aan rabno inaan aragno They have a civilized life, and that's what we want to see in Somalia. I'm sure it's going to happen. London conference is imminent now. shirka London ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ayaa dhawaan la qabanayaa haddaba mudane wasiir ma noo sheegi kartaa tallaabooyinka ugu horeeya ee aad doonaysaan in aad qaadaan marka shirkaasi la furo ama qodobadu sida ay u kala horeeyaan Number one, we want to see a new agreement. arrinta koowaad waa in aragnaa heshiis cusub oo u dhaxeeya dhammaan Soomaaliya oo lagu heshiinayo sidii Soomaalida ammaankeeda ay u maamulan karto sidii ay u kontrooli karaan ciidankeeda sida ay Soomaalidu iskugu imaan karto wadankooda una maamulan karaan iyo sidii ay u yeelan karaan xiriir wadamada kale ee deeqaha bixiya waxaan sidoo kale aan jeclaan lahaa inaan arko sida Soomaaliya ay u maalgashan karaan shirkadaha reer galbeedka Some understanding of how investment in Somalia by Western companies can be beneficial. 2018 ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa Soomaaliya ka baxaya sida heshiisku uu yahay haddaba misleedahay ciidamada dawladda Soomaaliya waxay awood u heli karaan in wadankooda ay maamushaan ma garan karo in iminka kaalinta ay buuxin karaan laakiin waxaa muhiim ah in ay isdiyaariyaan waan caawinaynaa intaan awoodno My last question would be fariinta ugu dambaysa ee safarkaagii kaaga soo baxay oo aad rabto in Soomaaliya aad u dirto to pass Somalis. Yes, very, very important. This is a relationship that goes back a long time. We are with. ha waa muhiim waxaa naga dhaxeeya Soomaaliya xiriir waqti dheer u laabanaya waxaan leenahay xiriir wanaagsan waana lahaan doonaa waxayna ma ahan un xiriir fudud waa mid waayo soo jira waa inaga halkan u joognaa oo aad arkaysaa in malaayiin lacag ah aan ku bixinayno dhanka waxbarashada dhanka ammaanka waxaan sii wadaynaa wada shaqaynta In education, in health, in programs that I think are for in security, and programs that are for the long-term good of this country. And we're going to continue to do that. Thank you, Mr. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.